maanta waxaa ka hadli doonaa 7 hab aad uga hortagi karto gaaska bisha Ramadaan. Qofka gaaska qaba haddii 7dan qodob uusan raacin, xaaladiisa caafimaad aad ayay u liidanaysaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا جنالك الدكتور أحمد يوسف كتخصصي عذرات الجودية في مرينكا أما عذرات كل عفيرة. هدي أد جنالك كعصوب تاي فضلا سبسكرايب ده سيادنا على سعة مر والبفضلا ريح جنب الالحب. marka la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan, malaayiin muslimiin ah ayaa soonta. qof walba oo muslim ahna wuxuu doonayaa ajirka iyo dambi dhaafka bisha barakeysan ee Ramadaan. sidaas darteed muslimiinta badankood way soomaan xitaa hadday jiran yihiin. muslimiinta soomaysa in badan oo ka mid ah waxay qabaan gaas ama gastritis. soonka badana caloosha waa firaaqo, waxaana caloosha ku bata asidka. qofka gaaska qaba haddii 7dan qodob uusan raacin, xaaladiisa caafimaad aad ayay u liidanaysaa. qodobka koowaad, qorshey cuntada waqtigeeda. u kala qaad waqtiyada cuntada 2 ilaa 3 waqti oo kala fog, sida afurka, taraawiixda kadib, saxuurta. waqtiga cuntada oo la kala fogeeyo waxay ka caawinaysaa in dheefshiidka uu helo waqti fiican oo cuntada jirka ku isticmaalo. qodobka labaad, si tartiiba wax u cun. tusaale, afurkii isticmaal biyo iyo timir iyo khudaar sida fruitska oo kale ah, qare, tufaax iyo wixii la mid ah. taraawiixda kadib, qaado cunto balanceed ah oo ka kooban carbohydrate iyo borotiin. suxuurta, isticmaal caano, timir iyo fruits. sidoo kale biyo badan, ugu yaraan 2 galaas ilaa 3 galaas isticmaal oo ah biyaha caadiga ah. iska ilaali inaad hore ka seexato suxuurta kadib. isku day inaad salaada aadid, wax yar soco, ugu yaraan saacad ilaa 2 saacadood soo jeed, kadibna jiifo. waxay ka caawinaysaa in dheefshiidka waqti fiican uu helo. sidoo kalena cibaadadaada ayay aad u saameynaysaa maadaama waqtiga salaada iyo waqtiga suxuurta ay aad isugu dhow yihiin. si tartiiba inaad cuntada u cuntid waxaa laga faa'iidayaa in jirka energy si joogto ah uu u helo, sidoo kalena in dheefshiidka caafimaad qabkiisa ama badqabkiisana uu aad u fiicnaado. qodobka saddexaad, cuntooyinka aad isticmaalaysid iyo kuwa aadan isticmaalaynin. qofka marka uu sooman yahay waxaa badanaya asidka caloosha, sidaas darteed cuntooyinka qaar haddii uu isticmaalo wuxuu dareemayaa culays, gubasho ama laabjeex. sidaas darteed waxaa looga badbaadi karaa isticmaalka cuntooyinka fiberka leh ama cunooyinka qolofta leh sida timirta, tufaaxa, qamadiga, koostada, ansalaatada. haddii uu qofka isticmaalayo hilibka, waxaa fiican in uu isticmaalo hilibka grilleedka ah ama ovenka lagu kariyey. kulligood wuxuu ka helayaa fiber ama qolof uu ka helayaa. hadhowna waxay fududeynaysaa dheefshiidka inuu si fiican uu isaga saaro, sidoo kalena energy fiican inuu kala baxo, qofkana hadhow inuu ku dhibtoonin saxaradii. cuntooyinka qofka gaaska qabo marka uu isticmaali karin ama in uu aad isaga ilaaliya ay tahay marka ramadaanka lagu guda jiro waxaa ka mid ah cuntooyinka la shiilay, cuntooyinka dufanka badan leh, cuntada bisbaaska badan leh, cuntada sokorta aadka u faraha badan ay ku jirto, cuntada cusbada aadka u faraha badan ay ku jirto. intaasba waxaa waaye cunooyinka halis gelin kara caafimaadka qofka iyo dheefshiidkaba. cuntooyinkan oo dhan waxay dhibayaan dheefshiidka, waxayna sababayaan laabjeex iyo bog xanuun, sidoo kale miisaanka qofkay kordhinayaan. sidaas darteed qof waliba inuu isticmaalin ayaa wanaagsan, khaasatan qofka sooman oo ay calooshiisa faaruq tahay. qodobka afaraad, cabitaanada uu qofka sooman isticmaalayo. qofka sooman waa inuu aad iskaga ilaaliyaa cabitaanada kafeyga uu ku badan yahay sida kafeyga, shukulaatada, shaaxa iyo cabitaanada fudud ama soodhada. cabitaanada soonka in la isticmaalo aad u fiican waa biyaha caadiga ah iyo sidoo kale cabitaanada laga sameeyo fruitska ama khudaarta dabiiciga. waa muhiim inuu qofka si joogto ah u cabo biyaha caadiga ah, caafimaad ahaan, guud ahaan jirka, gaar ahaan dheefshiidka. qodobka shanaad, inuu sameeyo qofka aalmiito fudud. isku day inaad cibaadooyinka sunnada ah sida taraawiixda iyo kuwa waajibka ah aad badiso. 2 maalinkii inaad 30 daqiiqo ilaa 1 saac oo socod ah aad samaysid. waxay kugu dhiirigelinaysaa inaad biyo badan cabto afurka kadib. waxay caafimaad u tahay xubnaha oo dhan, qulqulka dhiigga iyo dheefshiidka. qodobka 6aad, la xiriir dhakhtarkaaga. fadlan bisha Ramadaan ka hor u tag dhakhtarkaaga si uu kugu sameeyo baaritaanada aad u baahan tahay markaas, si uu kugu qoro daawooyinka aad u baahan tahay. sidoo kale
in aad dhakhtarkaaga la kulanto soonka ka hor waxay kaa caawinaysaa inaad ogaato cudurrada aad qabto, sidoo kalena in aad soomi karta iyo in kale in aad ogaato si aadan halis u gelin naftaada. qodobka 7 raac talooyinka dhakhtarka. waa inaad fulisaa talada dhakhtarka sida qaadashada daawada wakhtigeeda, iska ilaali isticmaalka cuntooyinka uu kaaga digay, iska ilaali isticmaalka cabitaanada uu kaaga digay. haddii aad dareentid xanuun, la xiriir dhakhtarkaaga. waxaan ka digayaa oo waddankeena aad ugu badan in bukaanada ay lahayn hal dhakhtar oo ay ku kalsoon yihiin. dhibaatada ay leedahay marba in dhakhtar loo tago aad ay u fara badan tahay, sababtoo ah qofka wuxuu ku fiican yahay bukaanka inuu hal dhakhtar gacanta ku hayo, xaaladiisa caafimaadna bilow ilaa dhammaad in uu la socdo. waxay aad u dhibaysaa qofka inuu marba dhakhtar uu u tago bukaanka. sidaas darteed fadlan isku day inaad mar walba ku xirnaatid hal dhakhtar oo ku kalsoon tahay, raacdana taladiisa iyo isbitaalka uu kuu diro markaas, ama dhakhtarkii kale uu ku yidhaahdo markaas in aad aaddo. laakiin keligaa ha isku dayin inaad marba dhakhtar u tagtid, waxay aad halis ugu tahay caafimaadkaaga. sidoo kale waxaa suuragal ah in adigana khasaaro badan ay kuu imaato, dhan maaliyadeed iyo tan naftaada oo ah midda ugu muhiimsan. insha allah intaas waa talo caafimaad. wax walba si aad u qabato waxaad u baahan tahay inaad ku baraarugsan tahay, og tahay. sidaas darteed waxaan mar walba idinla garab taagannahay inaan idin siino talooyin caafimaad ugu wanaagsan oo la hubo, kuna salaysan aqoon la xaqiijiyey, mar walbana la heli karo. waxaan idin rajaynayaa inaad ka faa'iideen fiidiyogan insha allah. usbuuc walba waxaa soo dhigi doonaa 3 fiidiyo oo muhiim ah. wixii talo iyo tusaale ah fadlan inoogu soo dir commentiga si aad mar walba noola socoto. fadlan subscribe saar. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay walaal. waa inoo mar kale iyo fiidiyo kale insha allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.